والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي عامل كستاجوكتين وولاشين شكري كسو دوادا جنال كيني حورنت عمتد عافيمادك ولا ليال معان ما أنتو حروا إنان balno topic la dhaho uurka dad baahi badan oo dad badan su'aalo iga soo weydiiyeen ayaa marka go'aansaday inaan topican aan ka hadlo to is uurka ayaa marka gabadha qaado waxa weeye 3 bilood ugu horeysa waa 3 bilood ugu adag ana Soomaaliina hayna aan dhahno waa gabadha markay walaca tahay waxa jiro cuntooyin iska ilaalin karto sida la rabo ee ugu gudbi lahayd marka gabadha uurka leedahay waxa u fiican subaxdii hadee seexato marka habeenkii seexato subaxdii hadee soo kici jirtay 6da subaxnimo inay soo kacdo 5 camal waxay u soo kacaysaa waxay ka dejinaysaa labalabada badan iyo mataga badan ka dejinaysaa marka cunteynaysan waxa u fiican cunto yar oo qafiif inay cunto laakiin hayn cunto badan oo hal mar ay qaadato hadii hal mar qaadato waxay u keenaysaa cuntadaas laab jeex badan ay u keenaysaa iyo way ma tagaysaa gabadhii ama waxay u keenaysaa labalaba badan soo marka waxa u fiican inay cuntadeeda ma yaraato hadii la dhaho hadii saaka soo kacday hal xab canjeeraska cunto qofka urka ma ku leeyahay sidina oo ogtnahay inay cunto badan ma qaato iyadaaba qaarna way cuntayaan qaarna ma cuntayaan hadda waxaan ka hadlaynaa kuwa zaidka ugu xanuunsan ka hadlaya aniga hadii hal xab canjeeraska cunto ama hal xab rooti iska cunto waxa u fiican inay cabaar waqti qaadato ee biyo badan ay cabto markaas ka bacdi hadii la dhahayo way seexanaysaa qofka marka uu iska leeyahay ogtiidin qofka gabadha dumarka way xijeceshahay inay maanta dhan seexato intee seexanin horta waxaan kula talin lahaa markay cunteyso ay seexanin cabaar waqti ha qaadato ama ha socsocoto cuntadaas intii ka dagayso maadaama hadii seexatay markay cuntadii cuntay halkaas waxa ka soo baxaayo hadana labalaba badan iyo laabjeex badan ayaa ku dhacayo marka tala ahaan waxay nagtaa anaga inay qofka cuntada iska ilaaliso hadii markay cunteyso inay seexanin hadii seexanaysana barkimo 2 barkin ama 3 barkin inay seexato ee geesgeesna u seexanin waxa fiican qofka markuu cunteeyo inuu saas u seexdo barkimo 3 barkin tuu dhigto oo cabaar saas sadii maadaama hadii ka fiirsan way dhahdo haddii cuntayna seexdaan raba laazim waay aniga waxaan kula talinaynaa marka hore ha seexanin marka cuntaysid waqti qaado ilaa 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo ilaa intii ka dagayso laakiin hadii u fiir dhahdo waan rabaa inaan seexdo 3 barkin ha qaadato saan ha u seexato saan iisan ha iska ilaaliso ilaa cuntadaas waxay barkimaas badan waxay ka caawinayaan cuntadii oo halkan soo taagneed ayay madaxeedii kor u qaadayaan cuntadiiba hoos u laabanayso laabjeexii ayay ka ilaalinaysaa waxa kale aan kula talin lahayn markay habeenkii gaarto iska ilaaliso cuntooyinka oo leh hadda sida uu naqaano Soomaalidan hay basbaaska ama kulul ha iska ilaaliso cuntada greenska loo u fiican tahay laakiin dad waxa jiro ee ku kiciso dhinaca gastriga ama laabjeexa ha cunto waxa u fiican markasta inay qaadato yogurtka qabow cuntada qabow way u fiican tahay waxa kale u fiican fruitska inay cunto biyo badan inay cabto so that biyo inuu jirkeeda ay ku dhicin inay qalasho maadaama ay laba qof tahay biyo badan inay markasta cabto waxa kale u fiican fruitska la shiido oo caadi soo toos ah waxa kale u fiican cuntadii aan horay 100 jeer ka soo hadalnay high fiberka because high fiberka waxay ka ilaalinaysaa calool adeega ama calool fadhiga gabadha dumarka calool markay uur leedahayna waxa fiican markasta iyadaba naturally waxa ku dhaca wax la dhaho calool istaag ama calool fadhi hadii cuntadii high fiberka cuni weysay markaas dhibaatooyin badan ayaa soo gaarayo mana u fiicna iyada qaas ahaan maadaama ay tahay qof culus waxay ka saacideynaysaa dhinacayadana saxarada inay musqusha fiican u gasho in cunto hadhow is fiican oo cunto waxa kale aan kula talinaynaa gabadha uurka leh inay ka fikirin maxaa la dhahaa dhinaca hilibka ay koray way jiraa hilibka dhinaca inta loogu talagalay actual laakiin waan ka hadli doonaa isagana qaybaha dambe wala hadli doonaa walaalayaal macaan waxaan ka hadlaynaa hada cuntooyinka gabadha u fiican 3 bilood ugu horeyso ama 15 week markii la dhahayo waa inta ugu horeyso ay walaca ku jirto waxa in iska ilaalisaa fiican cuntada oo qoyan markay laba hayso ama la dhahayo way ma tagtaa markaas waxa u fiican cuntada la dhaho dry ama qalalan inay cunto u fiican waxay ka caawinaysaa inay labalabada badan iyo mataga badan ka caawinaysaa waxa kale u fiican inay cunto bataati macaan waxaan Soomaali u dhahno iyo malayga waxa kale u fiican inay cabto caanaha because qofka uur markuu leeyahay waxa ku dhacaya hadhow lack of calcium wax la dhaho
lafa xanuun iyo ilka xanuun markaas horta xanuuno badan ay kusoo baxayaan sida ugu hortagto marka caano badan inay cabta u fiican hadii caanaha ay dad waxa jira ku dhahay caanaha ma cabi karo waayo waan ku labalabooda marka waxa fiican inay cunto cabto yogurtka dhinaciisa ay gashato ama caano geel xitaa waa the best caana ugu fiican waxa kale u fiican inay cunto malayga waxa kale u fiican inay cunto vegetable-ka iyo fruits-ka sida hore uga soo hadlay iyo whole green-ka biyo badan ay cabto mushaaridana way u fiicantay gabadha uur kale inay cabto waa cunto easy ah because dad way jiraan jecleen laakiin dad badan oo u fududahay way jirtaa wixii ka caawisa ee ka dejisaa gaaska badan ama maxaa la dhahaa Soomaaliga gastriga waxa dhahno ayay ka dejisaa dad qofka mushaari cabo biyo badan ayaan kula talinayaa gabadha uurka markay leedahay si kasta hadii uma tagaysa xitaa because hada waxay dhalaysaa ilmo nadiif badan oo ida caafimaad ahaankeedana waa u fiican tahay waxa kale u fiican inay cunto sandwich-ka ama hadii la dhaho Soomaaliya naga ma cuno laakiin saladka habadsato way u fiican tahay iyadana kiliyaha cunto subaxdii markay soo kacdo way u fiican tahay beerka waxa u fiican weegi hal mar inay cunto muu fiican cunuga markay uur leedahay inay cunto beerka indhaha wax ka soo gaaraya la dhahaa waxa kale u fiican inay cunto liinta inay cunto ku dadaasho because iyada markasta hormoneskeeda waa weak soo marka kore u qaadaysa vitamin C waaye iyo fruits ko dhan sida uu naqaano dhan saas kale u fiican waxa kale fiican walaalayaal inay gabadha uur kale inay cunto iska ilaaliso gaajada badan ma u fiicna hadii gaajo badan qabato way matag badan ayaa ka imaanayo because in qof waa ku dhex jira waxa kale u fiican oo caawinaya iyada inay qaadato fiican vitamins-ka tabletyaal shaldho iyo iska qaadanin kala xiriirto ama ha weydiiso dhakhtarkeeda iyada u qaaska ah markay qaadanayso vitaminkaas waxay ka helaysaa deganaansho badan iyo nasasho badan cuntada u furmayso waxay kale ka helaysaa stresska iyo waxaas qofka marka gabadha uurka leedahay waxaas kooban furan stressyaal badan hormoneskeeda kor buu joogaa way iska xanaaqdaa soo tabletskaas ama vitaminskaas uu dejinaya iyada wayna ku qaboobaysaa hadii iska qaadan intay aado kulama talinaya intay aado pharmacy hakala kaashato dhakhtarkeeda isaga u qoraayo walaalaan macaan nagala sii socda programkeena ku xiga waxaan ka hadli doonaa lamaanayaasha ay rabaan inay ilmo helaan sida u fudud iyo wax iska ilaalin lahaayeen inigoo mahadsan ha ilaawina inaa sheegaraysiin like garaysiin subscribe sameeysiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh